بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ومدة الصوماليات ومدة إسلام كدعالة العالم كتشوكتا سما فلياشة ملك استوات شوكتان مرة وتروح سوق بجبيني مقالة توسكا هراء نجاق وباي وهذا كيسين ديبوان من وقرتان وحنا سوق بجبيني مدشان وحنا سوق بجبيني إن نقايبنا العقاريسة شنيا فرتن كون يلح بقول يسديتني إلى $1 وأنو قايبني أفرتني شن قيس وقيس كيبا عرورته دو عقاريسة أما بدهان ترى عرورته عقاريسة عرور أقونا لو بقول يشني سجاشن عرورة dadka waxa ay dadkii ay dhibtu ka soo gaadhay qaraxii Soobe Muqdisho 14 Oktoobar 2017 waxa weeye hadana kaalme kuwan waana gudoomiye ka aniga Cabdimalik Sheekh Musa Aldoon lacagtina waxay iga soo gaadhay dad Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed anoo burco ku sugan waxayna ugu tala galeen dadkii dhibtu soo gaadhay gaarsi bay u dhaahdeen intii burca Hargeysana waanu ku galay runtii xaqiiqatan dhibtu sida halka yani ay kaalmadii iyo gurmadkii halku marayo iyo sida ugu haboon maxaa la sameyn karo waxaan ka hashanay runtii maxaa gudida taakulaynta oo halkan ila joogta ilaahay khayr ka baal mariyo gudidaas oo xubno kamid ay joogaan xubno kalena aan la kulmay oo naga maqan laakiin hawshana loo ayaan ka hashaday marka waxa weeye waxay soo diyaariyeen 45 qoys iyaga soo diyaariyay iyaga maxay u diiwaan gashanayeen iyaga wax siin jiray qaar kamid ah iyaga markii dadkii dhibtu soo gaadhay iyaga ka warhayay maadaama iyagu ka warhayaan 45 ugu darna 45 ugu liitay ugu horeeyay ka soo dad badan ay jiraan ay maxay noo soo ururiyeen hal meel bay markan ka eegeen waxay yiraahdeen xagga agoomaha dadka agoomaha ah aynu maxay siino markaas qoyskii ma sha Allah $1,000 bay maxay qaateen تريرو معي باقتي وأن قدالك قدرني شن قفان قدالك قدرني يلا وقفوا مقناضي مركب أفرت ما نسوي جالسة لكن واحد نوصل مركب العكس حسابني شن يأفرت بين النقط مركب تدوقف ما نعرف تبدأ قفنا سلبري أيام معي إن شاء الله سيننا أنكم مقالك معي كسر الضوء بدون بإذن الله الكريم تذكي صوت دري مقعد وده مرة وين شيء دون لكن قرضنا فصحيح دون يري وده معي نسيان يعني إلهي بنو ما هاد نقينا سيجار هنتي وحنو ما هاد نقيا جودي ده sida maxay la shaqeysay waxaan leeyahay dadkii soo diray nagu kala soonaaday hadana kaalme kuwan yiri maxay lacagta qaada oo gaarsiya dadkii waxaan leenahay ilaahay khayr ay ku abal mariyo wad mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynay maxay gudida ereyooda say yiraahdaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sida uu noo sheegay walaalkeen Cabdimalik Sheekh Musa Aldoon waxaan horta marka ugu Allah mahad celinaynaa kadibna dadkii Soomaaliyeed ee samafalayaasha ah ee daafaha caalamka iyagoo jooga Cabdimalik aaminay isagoo burco jooga oo lacagtaas ku soo hagaajiyay isagoo uu burco intuu ka yimid oo Muqdisho yimid kadibna uu gudigii gurmadka qaranka uu yimid kadibna gudigii uu u soo xulay 45 qoys oo agoona oo dadkii ugu liitay ahaa tusaale ahaan dadkii aanu hadda wax siinay waxa kamid ahaa aaba dhintay oo ka dhintay 30 caruur ah ilmihii hal ilmana uu ku darsamay 31 caruur ah oo agoona ayaan halkaan wax ka siinay oo 6 xaas ka kooban 4 la qabo oo hadda qabay oo ka dhintay iyo 2 uu hore u furay 26 ayaa caruurtaas waalidku waxay sheegeen inay ka yihiin qaangaar aan wali qaangaarin qofkii agoontaas sidaas oo kala 45 qoys waxay isku noqdeen guud ahaan 295 ilmood oo agoona ummadda Soomaaliyeed waxay muujisay gobonimadii iyo dhaqankii Soomaaliyeed ee islaamnimada salka ku ahaa hadii cadawgii shabaabku uu ummadda Soomaaliyeed caruurtoodii oo abatiray waxay ummadda Soomaaliyeedna jawaab ku bixisay inay iyaguna booskii u buuxin doonaan oo ay agoontaas ka faalo qaadi doonaan fariinta aan u dirayno ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba caruurtaas ilaa ay ka qaangaaraan ummadda Soomaaliyeed bay sugayaan ummadda Soomaaliyeedna way ku filan tahay waa idin soo gudbin doonaa agoonka iyo daatadiisa dhammaystiran qof walba wuxuu qaadanayaa qof iyo 2 iyo 3 ilaa caruurtaas intay ka qaangaaraanna waan ku filnaan doonaa waxaan ay muujisay arrintaanu inaysan Soomaalidu waxbana kala ahayn inaysan Soomaalidu isku filan tahay oo ay iyadu gargaar isugu filan tahay haddii ay dad badan oo Soomaaliyeed ay dadka amaanadooda durayaan
waxaa daliil u ah dad badan oo la aamini karaa waddanka inay joogaan. cabdimaalik sheekh muuse coldoon isagoo lagu bartay inuu samafalka ka shaqeeyo oo jooga magaalada burco ayaa waxaa lagu aaminay lacagtan markaasuu intuu burco kasoo duulay oo uu muqdisho yimid sidaa dadkii u gaarsiiyey meel walba inay dad noocaasa jiraan. marka qof walba qofkii uu aaminayo meeshii uu joogaba inuu aamino, ummadda soomaaliyeedna loo soo naxariisto, ummadda soomaaliyeed loo soo gargaaro. dalkeenna colaado iyo abaar iyo cudur intaasoo musiibooyin ayaa ilaahayna ku imtixaamay. marka ugu horeysana inaynu ilaahay subxaana wa tacaala u noqono, oo markaynu ilaahay u noqono ilaahay u toobadkeenno ayaa ilaahay musiibooyinkana ka dulqaadaya. markaynu isku naxariisana ilaahay inoo naxariisanana, markaynu iscaawino ayaa ilaahayna caawinaya. gabagabadii waxaan leenahay intay wax bixisay waxaad bixiseen wax ka khayr badan allah idinku bedelo, miisaankiina xasanaadkana allah idinku daro, naartana allah idinkaga xoreeyo. waxaad ummadaas walaalihiina ugu naxariisateen ilaahay samafalayaashii soo caawiyey cabdimaalik muuse coldoon deeqda soo gaarsiiyey iyo asxaabtiisaba dhammaantiin waxaan idinka salaamaynaa bartiisa. waxaan idin leenahay ballanteena waa sida maanta ummadda soomaaliyeed ugu soo naxariisateen inaad ugu soo naxariisataan, saad usoo caawiseen inaad usoo caawisaan, saad usoo gargaadheen inaad usoo gargaadhaan, saad usoo kaalmaysaanna inaad usoo kaalmaysaan. kaalmee kuwanna ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay idinka iyo cabdimaalik ilaahay idin kaalmeeyo. jazaakum allahu khayran. hal su-aal baan doonaya weydiiyey maasha allah. waxaan doonayaa runtii dadku hawl weyn baad wadaan, xaqiiqatan dadku markay idinka fog yihiin ma dareemayaan hawshaad wadaan, hawsha culayskeeda. dad badan baad xogtooda haysaan, dad badan baad qoysaskooda, bal ka warrama idinka laftiinu sidaad wax u maarayseen, dadkiisaad wax u kala siiseen, dadkii maahe qaabab baad ii sheegteen mandhexdaas inaad u kala qaybiseen. waxba gacan qabad badan baa jira, wax qabad badan oo runtii waxa laga yaabaa inaad kamaradaydaan adeegsan wax badan ood qabanaysaan. bal maahe in yaro kooban naga siiya arrimaha ugu muhiimsan saad u shaqaysaan. horta dhibaatadaanu markii ay dhacday 14 Oktoobar madaxda qaranka Soomaaliyeed ayaa markiiba istaagay, goobtii ayaa la tegay. waxaa la abaabulay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo gurmatay aqoon-yahanka ahayd iyagoo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo Soomaaliya gudaheeda meel walba. halka ayay dhalinyaradii waxay ka bilaabeen shaqo aan horey loo qaban oo inay xogtii ururiyaan, yaa meesha ku dhintay, yaa ku dhaawacmay, yaa wax ku yeeloobay. kadib bangiyada isbitaallada saf loo galo oo waxa weeyaan dhiigga la shubo, dhaawaca la geeyo, dadkii meeshii laga soo guro, wixii nool la badbaadiyo, wixii dhintay meel la isugu geeyo, wixii la aqoonsaday la aqoonsado, wixii markaas aan la aqoonsanna sidaas lagu aaso. gabagabadii markaa kadib guddigan ayaa dowladdu ay gurmadka qaranka oo ka kooban 11 xubnood, 5 culummada waddanka ugu waaweyn ee Soomaaliyeed ka mid ah, 2 bulshada rayidka, 2 dhalinyaro iyo 2 haweenka. guddigaana la qabtay. ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa loo furay tabarucaadka meelahay kusoo hagaajin lahaayeen. dowladduna waxay markii ugu horreysay dowladda federaalka Soomaaliya waxay bixisay $1 milyan oo dollar. dadka Soomaaliyeed waxaa ugu horreeyay iyaguna maamulka dowladda Puntland oo iyaguna bixiyey $500,000 oo dollar. kadib ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba jaaliyadaha dibadda oo dhan ayaa isxilqaamay, meel walba waa ay gurmadeen, meel walba deeqdu waa ka timid. dowladda walaalaheena Jabuuti ayaa iyaguna waxa ay keeneen $1 milyan oo dollar. dadka Soomaaliyeed iyaguna Kenya degan oo uu hogaaminayo Sheekh Umal ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha dibadda Aamino iyo xildhibaanada dalku ay ka mid yihiin ayaa iyaguna gurmaday oo Soomaalinimadii iyo qiiradii muujiyey. iyaguna waxay keeneen $300,000 oo dollar. waddanka Uganda ayaa culimadiisu iyaguna $53,000 oo dollar keeneen. Afrika iyo Aasiya iyo America markaasaa gurmadku ka yimid. guddigu wuxuu marka bilaabay markii ugu horreysay in dadkii dhibaatada ku dhacday horta dhaawacyadii lala tacaalo oo wixii laga qaban karo waddanka wax looga qaban karo wax laga qabto, wixii dibadda ay loo qaadi karana dibadda loo qaado. kadib dadkii halkaas wax ku yeeloobay oo dhan in bal markii ugu horreysay bishii hore waxaan ugu magac darnay dabshid la siiyo oo $300 oo dollar qoys walba la siiyo. waxaa xusid mudan waxaa nala shaqeeyey muasasada dacwada iyo horumarinta la yiraahdo Asafa oo iyaduna nala shaqeynaysa bartender nala ahayd. dad badan oo Soomaaliyeed oo culmawdiin ay ku soo aadinayeen, iyaduna anaga xogta naga qaadanayso, xogtii ay dhalinyaradii Soomaaliyeed aqoon-yahanka ururiyeen iyo wixii ka dhimanaaday oo anagoo aan ku darnay. sidoo kale shirkadda korontada magaalada siisa Beeka ayaa iyaduna dad wax gaarsiisay. sidoo kale hay'adda Qadar Charity ayaa iyaduna dad badan u gudbinay ilaa 250 qoys oo iyaduna wax gaarsiisay. shirkadaha Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool waxaa hormuud ka ahaa 3 shirkadood oo arrintan ka qayb qaatay. waa shirkadda korontada Beeka, shirkadda Amal iyo shirkadda Dahabshiil oo iyagu isbitaalka qayb dhan oo bukaanjiifkana dhisay, bangigii dhiigana insha Allah tacaala dhisi doona. waxay saddexdaas ka mudan yihiin maalqabeynta Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho joogta. runtii intaa kadib waxaanu bilownay in dadkii markii dhammaantood saa wax loo siiyey in agoontii la diiwaan geliyo 2,000 iyo siyaada ay noqdeen. ilaa markaa agoontii 800 oo dhow oo saqiir iyaguna la diiwaan geliyo. agoontii waxaan u qorsheynay in agoon walba 6 bilood
aan siino haddeer 6daas bilood oo bil walba ay noqonayso $50 markaas 6 bilood markii la siiyo kadib agoonta waa qaybin doonaa qaar qadar jaarati agoon bay qaadanaysaa kadib dad kale oo yiri qaar baan qaadanayna waa qaadanayaan inta kalena guddiga ayaa kafaalo qaadi doona ilaa inta ay laga gaari doonaan insha Allah tacaala sidaas ayay ku sii socon doontaa waxaanu bilownay markaa dadkii maalku wax ku yaxyeeloobay waxaan 141 qoys ganacsigooda uu ka koobnaa ilaa iyo baalash leh ama nin caday gadaya ama dadkii kabarada lahaa shidaalka gadanayay qudaarta gadanayay hilibka gadanayay waxaas 141 qoys ayaa iyaguna waxa la siiyay lacag soo kabasho ah oo la siiyay sidii ay u kala duwanaayeen inta markii la siiyay haddana sidoo kale waxa uu guddigu la siiyay 92 qoys oo ka koobnaa dadkii iyaguna albaabalayda ahaa ee albaabada lahaa oo iyaguna ganacsiga meheradaha furnaa lahaa ayaa iyagana la siiyay oo waxa la siiyay iyagana wixii ka burburay hoomeyda la yiraahdo qaar waxay ahaayeen bajaaj ayay ahaayeen intaas ayaa iyaguna 70 dadkii noloshooda ay ku dhisnayd baabuurta oo gaadiidka kala soo bixi jiray ayaa 70kii iyaguna uu guddigu wuxuu u gaday gaadiidkoodii ayuu dib ugu gaday sidoo kale 14 Oktoobar waxa ku xigay 28 Oktoobar oo iyaguna cadawga ay la beegsadeen hotelkii la oran jiray Nasahablood 2 Nasahablood 2 iyaguna dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay iyo dadkii hantida uga gudubtay iyo dadkii ganacsiga uga gubtay iyagana si gaar ah guddigu u xusay oo wax siiyay sidoo kale guddigu wuxuu xusay dad caafimaad dibadda loogu qaaday oo qofkiiba uu qarashkiisu noqday ilaa $20,000 oo dad tira xoga ahaa dadkii loo qaaday dibadaha caruurtoodii iyo dadkii ay ka tageen guddigu halkaan biil iyo masaariif ayuu ku siiyay Suudaan oo xoga dayac laga soo sheegay guddigu waxa uu diray $50,000 ayaa loo diray intaas oo waxqabad ah ayaa guddiga shaqadiisu ay ahayd inta badanna hadda waa la soo qabtay hadda gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan rabnaa sidii aan agoontii khaanada u kala gelin lahayn loo kafaalo qaadi lahaa fariinta aan ummadda Soomaaliyeed u diraynaana waxay tahay inuu qof walba u diyaar garoobo agoontaas sidii uu uga qayb qaadan lahaa kafaalo qaadkeeda inta kadib guddigu waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo guddigan mas'uulkii magacaabay ahaa talo ayaa guddigu u gudbiyay ummadda Soomaaliyeed wax garadkeeda adduunka daafihiisa jooga iyo kuwa dalka gudihiisa joogtaba nooga timid waxa la yiri hadii maalin walba dhibaato markay ina ku dhacdo guddi ha loo qabto oo laga bilaabo eber ha laga bilaabo inay ka fiican tahay in hay'ad ama xarun ama guddi qaran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u kafaalo qaada abaar haday dhacdo duufaan haday dhacaan cudur haduu dhaco dab haduu dhaco qarax haduu dhaco ummadda Soomaaliyeed dhigayanta laga dhigo ay noqoto meel ummadda Soomaaliyeed ay uga soo kabato dhibaatooyinka iyo abaaraha iyo duufaanaha iyo mushkiladaha halkaasna taladeeda qof walba Soomaaliya waa noo soo gudbin karaa Cabdimaalig iyo asxaabtiisu waa noo soo hagaajin karaan guddigana waa lagu soo hagaajin karaa dawladana waa lagu soo hagaajin karaa ummad maanta Soomaaliyeed haddaynan inagu isku xirnaan oo isku duubnaan meel gaari mayno siyaasadda isticmaalka ayaa layna ku sameeyay qaybiyo xukun in la isku kaandiro in layna kala qaybiyo in layna ku adeegto inaynu noqono ummadda Soomaaliyeed sidii uu yiri abwaankii Soomaaliyeed sheekhana ahaa Cismaan Yuusuf Kennedy niman sharafta Soomaaliyeed shayna dhaafsan baanahay niman kala shirinteeda ka shaqaynin baanahay niman shawr ajnabi iyo shin jeedan baanahay nin shuuriya aan caamiyo shucaraba dhigtaanahay nin sharciga ilaahay نشر ربي تفاسير تشروعنا وقبانا مركا إنه أصل كان دين تها إنتين نكون نقولنا أي نسدا أمي دونه وسدا يسقطوا بنانه دنت أنا يطلب أننا عينو نقول لنا واحد بكار مرينا جزاكم الله حوالد كم بدين الله أرجو أقوم كي دوكيمنت كي سيلاسيو بالول مركا أيضا ما تنا حوالد سنتهي شيء سلا لقلا أقوم كالعكس سميشوا وجوجا بأيده كسيسو وأيصل نقول واحد هاين يسو ووالله حني لما حنين يلقى فكريو النقطة بدون قهر مربع لجاري سيستم تقالة أما سيستم حسابات أو فريق إن الله سمين دون هدي الله يدمه أقوم والبنا عمل لوجا فريو أما حوالات كلا أكون لوجا فريو أكون كقف كي يجسور رديا حتى هالكاس يجسور رديا سيستم كاس نواد ديارنا إن أمد الصوماليين ولا سوى ذاقنا إن شاء الله تعالى أمد الصوماليين مال والبجوكت سجرمت كموجسي waxaan uga mahad celinaynaa gurmadkii ay muujiyeen waxaan uga mahad celinaynaa gargaarka ay dadkooda u soo fidiyeen waxaan ugu ducaynaynaa maalkoodii ay bixiyeen oo ay walaalahooda u hureen oo ay xanuunka inay la qaybsadaan ay muujiyeen ayna yiraahdeen muqdisho xanuunka ku dhacay qof walba Soomaaliya meel uu joogaba waa uu ku dhacay qof walba Soomaaliyana waa ka damqanaya qof walba Soomaaliyana jawaab uu ka bixinaya waxaan leenahay intii aad bixiseen wax ka qayb badan Ilaahay idinku bedelo saad ugu naxariisataan walaalihiina Ilaahay idinku naxariisto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. marka waxaan doonayaa intee waxaan noo soo galay laba qoys oo aan isu weynay bal inuu maxamed waxa weeye waxa la hadlayay maxamed Yuusuf Tigey
oo runtii muxuu ahaayey wanaag badan muxuu ahaay lagu ogyahay arrimo badan oo wanaaga oo ummaddan muxuu ahaay ay ku baraarayso intaa ka arrimiya oo ka hadla oo talooyin badan muxuu ahaay usoo jeediya ilaahay khayr ha siiyo runtii wanaag badan baan ku ogahay maxamed yuusuf tige waxaan doonayaa maxamed oo bal guddiga nala joogta kale inaad muxuu ahaay barti dadka oo aad ka bilowdid sheekh yuusuf cali caynta waa culummada soomaaliyeed ayuu ka mid yahay sheekh cabdulqaadir somow iyaduna waa culummada soomaaliyeed ayuu ka mid yahay dhalinyaradu waa dhalinyaradii gurmad qaran ee 24 saac u taagnayd una heelanayd ilaa iyo 14 Oktoobar ilaa iyo maanta inay aqoontooda iyo xoogooda wax walba ay u taagnaadaan intaana aqoonta qorayay intaana bukaanka lacagta bishaan ma idinku hay hay Aldan hawale qof todoba qof iyo inta dheeriga ayo inta dheeriga hayda lix boqol iyo labista Aldan diyaar waa قال لو دوبا معي يقترب هذا المجلس ومعي هذا ليش ان شاء الله انت درس صحيح بركانيه مقال خير انت يا بس برضه يا انا بريت ولدك مالك تجي مرة ان شاء الله خير بس بيبي اول شيء خلاص ويرود انت هو مسموع من ما شاء الله